wuxuu sheekhu wuxuu dadka ku dardaari jiray inay saddex duco ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin saddex duco inay ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin ducada koowaad waa maxay wuxuu waxa aad oranaysaa allahumma inni as'aluka husna al-khatima ilaahu waxaan ku weydiisanayaa khaatimo wanaagsan ducada labaad waxaad oranaysaa allahumma irzuqnii tawbatan nasuhatan qabla al-mawt ilaahu toobad nasuuxa ah igu arsaaq intaan dhiman ka hor saddexaadna waa yaa muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik ilaaha qulubta gagadiyo qalbigayga diintaada ku sugan markaan u fiirsaday saddexdan duco ikhwaani waa saddex duco oo aad iyo aad u muhiim ah nolosheenana si laxaad leh oo qoto dheer u taabanaya sababtu waxay tahay waxa intuba ay ku dulmeeraysanayaan arrin kaliya oo ah inaad adduunyada ka hayaato oo ka tagto adigoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaq ku waafajiyay adigoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka raali yahay gaayada qofka bila aadamigii uu nool yahay qofka muslimkii waa taa weeyaan maanta ikhwaani adduunyadan fitankeegii waa farabatay waxa batay arrimaha la isku haysto بين المسلمين dhexdeeda xaq iyo baatilkiiba in marka qaar kood sida loo kala sooco ay adag tahay inkastoo dadka ahlu xaq iyo ahlu basiira ilaahay mar walba xaq garansiinayo laakiin adiga maxaa lagaga baahay ka shakhsi ahaan ahamiyada ay ciidan leedahay bay garansiisay waxa lagaga baahay adiga shakhsi ahaan akhi naftaada badbaadi waxa laga yaabaa nin maanta oo dhan siyaasad ka sheekeynaya siyaasadii Soomaaliya ka sheekeynaya dagaalada qabaa'isha Soomaalida dhex yaala ka sheekeynaya waxa adduunka ka dhacayo ku xiiqayo oo fadhidirir ku xiiqay ayaa hadana nafsiisa dayay akhi adigu haddaad maanta ilaahay aad la kulanto oo taadii noqoto oo hooyga aakhira aad ku hooyato ma leedahay ilaahay raaligiisa ma sheeganaysaa waji aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad kula kulanto waji wanaagsan oo ilaahay aad kula kulanto ma sheeganaysaa naftaada badbaadi intaanad ikra ka sheekin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaliya ayaa maalinta qiyaamaha surtaagay ilaahay qabiilna soo wada urun maayo reer hebel baa la wada xisaabinaya la oranaya maalinta qiyaamaha oo xisbigii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama jamaacadii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama gobolkii reer hebel ama degmadii reer hebel وكل آتيه يوم القيامة قفر بابا مالت قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي كلية وعد صعوتها يعد الدوديسان يعد دفاعيسان أن يجنبوا مالت قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي تاجين أهمية الدعوة كان إليهين وحيكا أنبق عضيان إلى الإلهي بريسو حسن الخاتمة يبقى الخاتمة يكون هذا الشيء dad baa ikhwaani iyagu ahli cibaada ahaa haddana intii aanay dhiman ka hor isbedelay oo caqiidadoodii bedelantay oo cibaadadoodii ay bedelantay oo sunnihii ka leexday dad baa jira madaalimta iska ilaalinta inay dadka dulmiyaan laakiin qabla al-mawt madaalim badan ku dhacay allahumma nas'aluka husna al-khatima ikhwaani dad baa naftu ay ka baxday iyagu sujuudsan dad bay naftu ka baxday iyadoo kitaabka ilaahay akhriyayo uu hor furan yahay dad bay naftu ka baxday iyagoo kacbada dawaafay dad bay naftu ka baxday iyagoo carafa taagan sheekh maxamed rashaad oo garan qasar rahimahullah ta'ala dad bay naftu ka baxday iyagoo sooman ikhwaani adii biritoole markay maalintaadii noqoto geeridu maxay kugu noqotaa maadoo ilaahay caabuday maadoo ilaahay ka baqanaya adigoo iska ilaaliyay حقوق ذلك بلادك يكون ليهين أديكو مظالمتي إسكا إدارية أديكو ديك مسلم أن قاعدها لجلين أديكو حنتي مسلم أن قاعدها لجلين أديكو عرض مسلمين أن قاعدها لجلين سوى حيكون من نطق أديكو حاصل نبض الله قيسين حسن الخاتمة إلهي مربو البويديسو خاصة وأنت في السجود تكلنا وحتى رضا استشيخ ويلي إله ولدو أجساق اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت توبة النصوحة waa maxay ikhwaani waa toobad lagaaga meelo oo lagaaga dhaqo duntii aad gashay adigoo saafiya rabbigaagi subhanahu wa ta'ala ku abuurtay aad la kulantay weeyaan toobada nasuuxa ilaahay baa ku xanu galay qof
ولو بالآذن وقلدما ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له قفك الذنب كتوبت كنا وسيدي قف أن ذنبي بقليبا توبة النصوح عن الذنوب تالغو نقا الذنوب تالغو ما يراه سيئاتك أيا لغو ما يراه وحلي الإله أنت آنا لمن يجرد آنا إيمان يقولك آخرة آنا كو أرورين إله توبة يوافج حتى لحظة وضم بيسين ولا شهر هالنقطة إله وافج ومر الله على مركز نفسك هبحضه والوقت رقاقي خاص كان كاجو والله حري سوقاجو والله حري عمل صالح حد بمجره اللهم لأعماشا حسنات كوغا يكون صعونيان انت ما حيث لي الا حتى اللي بشهاده كدب مساجد dadkii dhisay waa kamida xawaarihi maxal lacagta u gurinay ayaa kamida guri aad agoonta u dhistay baa kamida ceel biyo oo dadka aad u qoday baa kamida walid saalixa oo ku soo duceeyay ayaa kamida laakiin acmaashi adu aad isahaanta u sameeysay wuu kaleetay takalana ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوبك قديو قلبي الدين هذا تصل سلف وحورن جرين إياك فإن الدين الله واحد إياك والتلون فإن الدين الله واحد تشتروا له نقول تشتروا له صوت غنى تشتروا له نقول هيس بالدليل معلم بقى يعني سيد الدبيشة حاجة دينا دين إلهي كجا إيمان دين إلهي هو مد هيس بالدليل ثبات كوير دين إلهي واحد شرف ما نورك يسي ما أنت هناك وارك دين إلهي سبب شو سنة الشرف سنة وارك يسي ما أنت بدعها وارك دين إلهي وامد سنة دين اسمه بدي شو نسأل الله عز وجل إنه دمانتهم بحسن خاتم لغوار ساقه إنه توبتنا صحيح لغوار ساقه إن دين تيسرين نغسه إنه مسلمين ومؤمنين إن الله سبحانه وتعالى أن نذكر الله